dhalinyaradu laba cillad oo labadaas aan idin ka digaya ku gabagabeynaya laba cillo ayaa jira laba xanuun oo ay u baahan yihiin dadka dhalinyarada inay iska ilaaliyaan xanuun dadku inta badan uu yaqaana waa suuqgalka waa inuu ninku tasayub xumaha si fudud baa loo bilaabaa inta badan one step maanta sigaarka la tijaabiya 3 markaad isku qasabto maalin afraadana sigaariya cabad noqonaysaa khamra maalin la yiraahdo tijaabiya maalin toddobaadana khamriya cabad soo baxaysaa suuqa habeen ama laba la tijaabiya bariga dambena routine walada sabtidii hadda wadada sii taagan ma noqonaysaa idan kaas waa inxiraaf waa tasayub waa in tareenka ka dhacdo haddaad sidaa uga dhacdana waxaa adag inaad soo noqoto bale waxa laga yaabaa aakhiriya adduunba inaad baabaado kaa inta badan dadku iska waaniyaa mid dhanka kalaaba isna jira dhalinyaradu markay cibaadada qabsadaan ay qumanaanta qabsadaan waxaa habboon iyagana in la hago aan la sii daynin in la hago waan la sii daynin qaar ba xagga kale uga dhaca maxaan uga jeednaa nolosha miisaankeeda ka luma dabeetana waxbuu tira badiya walow taacana ha noqotee dabeetana wax kale ku xadgudbaya مثلا عبد الله بن عمرو بن عاص به وغوري isagoo nin dhalinyaro ah markii loo guuriyay ninkana wuxuu ahaa nin quraan akhris badan oo soom badan habeenkiina uu taagayo quraan uu buu akhriyaa maalintiina salaad uu butuka habeenkiina quraan iyo salaad buu wadaa maalintiina waa sooman yahay inantii loo meheriyayna kanafkeedaba ma taaban ila waa nin maalina sooman habeenna taagane aabaheed baa soo maro wuxuu yidhi war bal warrama inantii buu yidhi bal warran nicma rajul huwa rag isagaa u fiican bay tidhi mase arag macnaha bay u tilmaamtay u guud marta ragna waa u fiican iyo xumo ku sheegi maayo oo ninkaas soomane salaada iyo dee cibaado u taagan reerna ma oga unbaa la leeyahay dabeetana nebigu uu sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waxaa la yidhi sanaad ku wadaa sax maaha quraanka intaad ku akhridaa dee waa habeen kasta waan kaga tuuraa buu leeyahay waa dhameeya kadaa baa la yidhi bishii mar dhamee quraanka markaasuu yidhi maya waan ku xoog badnay iidaa ilaahay rasuulkiisa xoogayga aan ka faa'iidaystay haddaad 12 casho dhamee baa la yidhi ma ilaahay rasuulkiisa iidaa waa xoog badnay aan ka faa'iidaystay toddobaadkii mar dhamee ma waa xoog badnay aan ka faa'iidaysto war mar 3 casho mar dhamee baa la yidhi ma waan xoog badnay war halkaa lama dhaafo buu ku yidhi 3 casho lama dhaafay ka joog waxaa lagu yidhi war maanan soomaa waanan afuraa dan waxaa loo tilmaamay right wayga isagoo soon iyo salaad iyo quraan akhris ku jira waxaa loo sheegaya xuquuq kale inay luntay maaha soon iyo salaad inay xuquuqda kale lumiso Salman al-Farisi ayaa ninkii la walaaleeyay Abu Darda Abu Ayyub al-Ansari si Abu Darda ayuu la seexday habeen buu yimi dabeetana waxa arkay xaaskiisiyo Mariya iska kuwii lagu shaqayn jiray iska sidata dee gabadh la qabo baan u ekayn maxaa dhacay buu yidhi waxay tiri walaalka adduunyadan kama leh aakhiruku mashquulsan iyo meel kale habeenkii wala seexdo in yarba markii la jiifuu soo booday sahaabigii dabeetana salaad buu sii xidho war seexabu ku yidhi salaad leyna iska seexo waa ka celiyey abaan markii la joogu soo booday war seexabu ku yidhi waa seexiyey goor dambe ayuu yidhi kaa iminka waa la tukada dabeetana wuxuu ku yidhi war dhegayso naftaaduna xaq bay kugu leedahay cidi kuma odhan habeen oo dhan soo jeeday habeenkii nafta u raaxee inna ilaahay caabud naftu xaq bay kugu leedahay ilaahayna xaq buu kugu leeyahay reerkaaguna xaq bay kugu leeyihiin buu tilmaamay waxaan waa xuquuq mid walba laga raba inaad gudbiso subaxii baa loo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam Salmaan run buu sheegay buu leeyahay sidaa uu Salmaan sheegaa saxa waxaan uga dan leeyahay dhalinyarada xagga cibaadada timaadana tatarrufkan kale ku dhacaa inuu yiraahdo anigu tacliinta ma iska deynaya waxba baran maayo
meel lagu xoogsi tegi maayo naaga qaban baa meel heer marmara maxaad qaban dabeetana sooshyaalkaad barayaysaa dabeetana masaajidka dhex fadhiyaysaa hada laysa bidiin wax sax maaha cibaadayso sax salaadaada ilaasho soonkaaga ilaasho been ha sheegin run sheeg cibaadayso laakiin noloshii activity-geedana waa cibaado kale ka qayb qaado waalidkaa u samafal mujtamacaaga u samafal dadka wax u qabo idan waxaan leenahay ku soo koobaya waqtigayga waa iska dhammaad baan filayaaye shaabun nasha'a fii cibaadati illaahi baa ammaanan laakiin labada tataruf midna diinta kuma ammaana inaad noloshoo dhan one sided ka dhigto oo noloshoo dhan aad si qura u aragto nolosha waa laynagu itixaamay ibtilaaga dhammaantii inaad gashaabaa loogu talagalay ee anugu waxaan ku jirayaa uun halka kani sax maaha saa awgeed waxaan leenahay dadka ammaanani waa dhallinyarada ilaahay caabuda ee aakhira ammaantaa leh cibaadadoodaasi dadka kale toddobada mawaaqif baa loo sugaya iyaga mowqif gaara looma sugana cibaadadooda mutlaqa baa laga dhigay waxa cibaadadooda mutlaq looga dhigay bay leenahay inay noloshoo dhan ilaahay u hogaamiyaan labada tarafba waa xun yihiin markaa inaad tarafkaa cibaadada uga dhacdo tataruf u baxdid iyo inaad tarafkaa kale uga dhacdo tatarufka waxaa sababaana qofka dhallinyarado isagu iscajabiyo isku filaada oo aan weydiinin dadka ahlu cilmiga aqoonta dhaame agtiisa jooga aan wax weydiinin way hagi lahaayeen waxa sax ah sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin